السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي ميل كستو أتشوكتان كسور دوادا برنامج كيني قلب نمو وأنا دي كوكسو قد بندورنا معلوماتك وركي ووينا عيتاني انتينو كلا مغنين وما لنمو السنين تاريخ دون عيتها لبضا بيش سبتمبر قضبضا برنامج كقلب نمو أنا دي كوكا يوحا كمدا مدحوينا أمريكان كبايدن أول شيء يو in uu soo wado hindise cusub oo nabadeed oo lagu tilmaamay kii ugu dambeeyay oo lagu heshiisiinayo Xamaas iyo Israa'iil. Haddaba maxaa ka hagaagi doona hindisaas? Falanqeeyaashu waxay ka yiraahdeen ayaan barnaamijka idin la wadaagi doonaa. Waxaa sidoo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa maxkamadda sare ee Israa'iil oo soo faragelisay shaqa joojintii ururada shaqaalaha ay ku dhawaaqeen taasoo gilgishay maanta Israa'iil Netanyahuna ka qeylisiisay. Haddaba barnaamijka ayaan xogaha arrimaha ku saabsan idinkugu soo gudbin doonaa. barnaamijka waxaa sidoo kale aan idinkugu hayaa macluumaad ku saabsan maalinkii lixaad dagaalo culus oo ka socda daanta galbeed. wararkii ugu dambeeyay dagaaladaas ayaan barnaamijka iyana ku faaqidi doonaa oo wixii soo kordhay. inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh. waxaa laga furay wadada Sodonka X Hotelkii Caamir macahad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy. waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sareyso dibaddana lagaaga keenay. cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga International GCSE-ga. shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. waxa loogu talagalay macadkan carruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan. sidoo kale fursadan waxa iyana ka faa'iideysan kara carruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sareyso. haddaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy. kulan wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii galabnimo. maanta waa maalinimo Isniin ah. haddaba sida aad la socoteen barnaamijkan kii ka horreeyay ee subaxnimo waxaan idinkugu soo gudbiyay macluumaad aan filayo inaad si weyn uga hesheen intii daawatay. inta kalena ay ka heli karaan Facebook iyo YouTube. haddaba barnaamijkeena galabnimona waxaan idinkugu hayaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay tan iyo intaynu kala maqnayn warkii saaka iyo hadda. waxaan ku bilaabaynaa saaka waxaynu ka hadalnay in maantay saakay 6dii ay ka bilaabatay Israa'iil shaqa joojin saameysay eraboorradii hay-adihii dowladda meel kasta wixii oo dhan saameyn weyn ku yeelatay. haddaba marka si kastoo ay arrintu tahay hadda marka waxaa soo baxan leeyahay go'aamo cusub oo ku saabsan maxkamadda sare inay go'aan soo saartay ku saabsan sheekadaas. haddaba marka aan idin tuso warbixinta laga qoray sheekadan maxkamadda waxay amartay maxkamadda sida la leeyahay
magaalada Tel Aviv in shaqa joojintii socotay la joojiyo oo macnaha wax shaqa joojina hadda kadib aanay maxkamaddu ogolaan doonin waxaana ay sheegeen inay ku ekayd oo maxkamaddu amarku ay bixisay saacaddu markii ahayd 2:15 duhurnimo in la joojiyo inkastoo la soo sheegayo in xaaladdu ay weli kacsan tahay haddaba ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha Israa'iil ee la yiraahdo Hastadrot ayaa waxa ay sheegeen in shaqa joojintoodii ay hirgashay maanta Isniina oo ay ku baaqeen iyagoo cadaadis ku saaraya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si markaa uu u waafaqo heshiis ku saabsan xabad joojin in laga gaaro maxaabiista marka maxkamaddu amarkay soo bixisay waxay leedahay 2:15 subax duhurnimo ayaa idinkugu eg tahay laakiin waxaa la soo sheegayaa ilaa galabta in shaqaalihii ay gadoodsan yihiin warar kale waxay sheegayaan in caawa ay maaragtay ku eg tahay oo shaqaal joojinta laakiin saameyn weyn ayay waxay ku yeelatay rabooradii iyo meel kasta Netanyahuna culays fara badan ay saartay haddaba marka Netanyahu muxuu ka yiri sheekada maanta baashi dhanka kale u rogay wuxuu yiri dadkan ka shaqaynaya in hawlihii Israa'iil dhan joogsadaan waxay u adeegayaan uu yiri Sinwar macnaha dadka Yahuudda ah waxay nacab yihiin Sinwar maadaama isaga uu soo weeraray dad badan ka afduubay dad badan ka dilay marka wuxuu ka gadaa marka wuxuu leeyahay dadka hawshan ka shaqeeyay Sinwar ay u adeegayaan macnaha dadku waxay ku mudaharaadayaan maxay leeyihiin war heshiis qaado dadkeena la soo daayo asagina dhanka kale ayuu u rogaa wuxuu leeyahay Sinwar ay u adeegayaan haddaba marka aan idin tuso warbixin arrimaha laga qoray Netanyahu si adag ayuu uga jawaabay arinta ku saabsan maruu ka hadlayay 6 qof la haystayaasha la dilay shalay ciidanka Israa'iil meydadkooda ay soo qaadeen haddaba warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu yiri xilli lagu guda jiray kulankii xukuumadda in markaa si adag ay uga jawaabi doonto xukuumaddiisa dilkii loo geystay 6 maxbuus ku dhintay gacanta Hamas inkastoo Hamas ay sheegtay inay ciidanka Israa'iil iyaga dileen haddaba Netanyahu dhanka kale waxa uu ka hadlay sida ay suuragal u tahay in ay ku adkaystaan mowqifkooda ah in la sii joogo deegaanka la yiraahdo Philadelphia ee xuduudda Masar iyo Gaza si loo xaqiijiyo ayuu yiri ahdaafta ama danahii dagaalka loo galay waxaana uu intaa ku daray inay adkaan doonto haddii laga soo baxo halkaas in dib loogu laabto Philadelphia marka wuxuu leeyahay haddaan halkaa ka soo baxno sidaasay noqon doontaa dhanka kale wuxuu ku eedeeyay dibadbaxyada socdaay iyo shaqo joojinta inay u adeegayaan Yahya Sinwar marka muxuu leeyahay sheekooyinka marka hadaladiisa maanta cabinetkii uu la kulmaayay golihii wasiirada marka hadaladii uu meesha ka sheegay dhowr qodob ugu muhiimsan wuxuu yiri ku adkaysta go'aankiinii ahaa inaan weli sii joogno Philadelphia sababtoo ah wasiirka gaashaandhigga waatii uu yiri golaha wasiiradu ka laabto go'aankiina si dadka loo soo daayo marka isagoo mowqifka ku adkaysanayo ku adkaysta mid kale wuxuu yiri haddaan ka baxno yiri Philadelphia ma ku soo laaban karno way nagu adkaanaysaa dhibaato kala ka mareynaa hadda Masar aan la hadalnay waxba la isku xirxiray si farsamaysan ku galnay hadda laakiin soo laabadka meelihii aan soo mari lahayn iyo kulli wixii oo dhan waa lagu sugaayay nimankii Al-Qassam si fiican ay noo garaacayaan Masarna way noo aamusi doontaa laakiin markii hore qorshaha wuxuu ahaa in maalmo kooban meesha la joogo Israa'iil ay baarto kadibna iska laabato laakiin waa ku habsatay waa degtay laakiin mar labaadka wuxuu leeyahay sheekada ma dhici karto uu leeyahay inaan ku noqono aaday noogu adkaanaysaa uu leeyahay waa tahay marka qodobka isaguna halkaas ka gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah waxaynu ka hadlaynaa madaxweynihii Mareykanka waxa la leeyahay wuxuu soo wadaa hindise kama dambays ah oo lagu heshiisiinayo Hamas iyo Israa'iil xabadda lagu joojinayo maxaabiista lagu soo furanayo kii kan ka horeeyay ee fashilmay
oo xamaas iyo dhexdhexaadayaasha kulli ay og yihiin netanyahu inuu ka dambeeyey ayuu maraykanku waxay lahaayeen kii ugu dambeeya waa hindisaha haddana waxay leeyihiin hindise cusub soo wadaa oo macnaha lagu soo afjarayo dagaalka bishan gudaheeda in lasoo afjaro ayaa la rabaa si hadhow October kaliya ka dhiman doorashada Mareykanka 5 bisha November doorashadii madaxweynaha la gali doona marka bishan marka waa in arinta la soo afjaraa leey hadaba aan aragno marka waxa laga qoray wargeyska leeyahay Al-Qudus waxa uu leeyahay la taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa wuxuu la kulmay qoysaska dadka Mareykanka ah ee dadkooda lagu haysto Gaza maalintii Axadda ee shalay ayuu la kulmay wuxuuna u sheegay in madaxweyne Joe Biden uu hadda ka shaqeynayo sidii loo soo gudbin lahaa hindisihii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Hamas ay ka shaqeynayaan oo markaa si loo sii daayo maxaabiista xabad joojina looga hirgeliyo Gaza marka wuxuu leeyahay isbuucan dabayaaqadiisa ama bartamihiisa ayay dhici doontaa hindisahan waxaana wargeyska Al-Qudus uu ka soo xiganayaa website-ka la yiraahdo Axios ee arrimaha siyaasadda wax ka qora Mareykanka fiiri waxa leeyahay nihaa'i waaye kii ugu dambeeyay ayuu keenaa markaan Biden isbuucan dabayaaqadiisi waxaana la keenaa waa la soo afjaraa laakiin falanqeeyaashu waxay leeyihiin waxaan Mareykan hadduu 100 ikhtiraah keeno oo hindise keeno ma shaqeynayaan ilaa Mareykanka ay dhab ka noqoto heshiisiinta iyo waxa uu wado Israa'iil markay diido iska aamusaa way iska kala tagaan waatii wasiirka arrimaha dibadda inta Israa'iil tagay ninkii Netanyahu waa aqbalay wax kasta waa okay markuu Masar yimid uu yiri waxaan aqbalna male waa beentis dib xataa ma ugu laabanin Mareykanka xataa lama hadlin Netanyahu marka falanqeeyaashu waxay leeyihiin sheekadaba marka sheeko ma aha maalin iyo laba iyo hindise kale cusub iyo shaqeynaysa ilaa la helo Mareykanka inuu si saxa Netanyahu iyo wasiiradiisa mayalka adag ee toos u diidan heshiiska ee u hanjabaya Netanyahu inuu la hadlo sababtoo waa loo jeedaa Netanyahu heshiis ma qaadan kartid ay leeyihiin Bil Gvir iyo Smotrich hadaa qaadato dawladda ka baxayna isaguna waa diidaa wax kasta marmarsiyo u sameeyna oo fiirsada marka sheekadaas halkaas ay maraysaa waxaynu ku yaraa kanaynaa qadar xayisiisa waxa noo soo socda arinta ku saabsan daanta galbeed halka la kala marayo sheeka nooga socotay halkaas muqaawamadii dhalinyarada ahayd ee qoryaha wadatay iyo ciidanka Israa'iil ee halka tagay halkoodu waa sidee maalinkii lixaad waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxaynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacarers.com waxaan nahay Gasasos Group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland jiif quraac iyo waliba jimicsi Sona Hall Sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaasi ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir kulanti wanaagsan asxaabay mar kale meel kastoo aad joogtaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka galabnimo ayaan idiin soo gudbinaynaa waa galabnimo isniina haddaba barnaamijkeena qaybta ugu dambeysa waxaynu ku eegaynaa maxaa ka soo kordhay daanta galbeed haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidanka Israa'iil ay maanta haddana baalkii baabuur qafilan iyo ciidan badan ay geeyeen deegaanka la yiraahdo Tuul Karam iyadoo jiniinna maalinkii lixaad ay dagaalku ka soconayo ilaa hadda waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil gabgabtii badneed waa joojiyeen awal inta carraan guryaha galaan dad soo qaban jireen hadda banaankii taageen baabuurtooday ku gambadeen amarkii dawladoodana way qaadanayaan meeshii xaladii jiniin la leeyahay way go'doomiyeen wax gali kara iyo wax ka bax kara male hadday soo dhaqaaqaan waa la isku bilaabaa xabaddu way dhacaysaa maalinkii lixaada markaa jiniin xabaddu ka socotaa leeyahay dad fara badan marka dhintay Falastiiniyiina
askartii israa'iil ayana qaara laga dilay, qaar badanna waa laga dhaawacay, waa la isku baaba'ay meesha. marka ciyaar ma jirto. inta soo baxday dadka iska xarxaro iska kaxayso daanta galbeed waa diideen. haddaba markaa wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta war ay soo saartay khasaaraha maalinkii 6aad dagaalka socda inta uu gaarsiisan yahay. haddaba israa'iil waxaa la sheegay inay dishay 29 falastiiniyiina oo ay ku dishay daanta galbeed. 5 ka mida waa caruur ayaa la yidhi, tan iyo maalintii Arbacada markii weerarka ballaaran ay ku qaaday dhinaca waqooyi ee daanta galbeed. haddaba dadka dhaawacmay waxaa la sheegayaa inay iyaguna tiradoodu gaarayso 121. haddaba militariga howlgallo fara badan oo ballaaran ayay israa'iil ka wadaan deegaanadaas. ciidanka israa'iil waxay weerareen Arbacadii lasoo dhaafay dhinaca waqooyiga daanta galbeed. haddaba wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta waxay sheegaysaa in qaar ka mid a cisbitaalada ay dhibaato soo gaartay oo israa'iil ay hor istaagtay. sidoo kale baabuurta gurmadka ambalaaska ee gelaya goobaha weerarka ay ku qaaday sida Jiniin iyo Tulkaram waxayna sheegayaan hay-adaha gurmadka in markaa ciidanka israa'iil ay beegsanayaan oo toos ay u weerarayaan. cisbitaalada qaarna waxay diiday israa'iil inay dadka lagu daweeyo, way go'doomis horaadii kuu sheegay. marka xaalku marka halkaasuu maraa. waxaa moodaa marka dardartii hore waa iska soo qaqabanaynaa, nimanka hubaysan waa la soo baxaynaadi ma jirto. marka hadda qorshe kale wadaan diyaarado drona 24 saac meelaha saas u wareegaya. xaafadaha qaar marka way go'doomiyeen, marka waxay rabaan inay dadkii maaragtay dhaqaale ahaan u burburiyaan. dowladda hoose ee daanta galbeed gaar ahaan Jiniin waxay leedahay malaayiin dollar ayaa lagu qiyaasayaa macnaha hantida ay burburiyeen ilaa Arbacadii markay soo galeen. dukaamada goobaha muhiimka shacabku leeyahay waa burburiyeen. dhanka kale Xamaas iyo Islaamic Jihad ayaa iyagu waxay wacad ku mareen inay muqaawamadu aysan intaa ku sinaan doonin. waxay sheegteen sidoo kale amaliye istishaadi ah ama howlgal ismiidaamin ah oo la isku qarxiyay gaari walxaha qarxa la soo saaray oo ciidanka Israa'iil lagu qarxiyay iyo waxyaabo badan ayay muqaawamada falastiiniyiintu sheegteen. haddaba wararkaas ayaa ugu dambeeyay daanta galbeed. iyagana barnaamijkaygii galabnimona intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wixii warar ee soo kordha haddii alla idmo barnaamijka habeennimo ayaad kula socon doontaan. ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inagoo mar walba halkan idiin soo dhigna macluumaadka iyo masaadirta wararku halka ay ka yimaadeen. fadlan barnaamijka like garay oo share garay haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube. haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka, Facebook-gana follow garay si aad noogu soo biirto barnaamijyadeena aad u hesho. inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale nabadgelyo.